deegaanka Cabdalla Biroole waa deegaan qiyaas ahaan 5 kiiloomitir dhinaca galbeed kaga beegan magaalada Kismaayo wuxuuna ka mid yahay deegaanadii u dambeeyay ay ciidamada daraawiishta Jubbaland ka xoreeyeen kooxaha nabadiidka ah ee Al-Shabaab kadib markii ay ganacsatada deegaankan ka hoos baxeen gumaadkii Al-Shabaab waxaa u suura gashay in ay balaariyaan ganacsiyadooda oo ay ka abuuraan ceesh nacfi leh iyadoo uu jiro koboc guud oo ganacsi wuxuu barnaamijka kafadaha ganacsiga Jubbaland TV u koorgalay culeysada ganacsatada ay ka waajahaan hawlahooda ganacsi waxay qaar ka mid ah ganacsatada oo aan la hadalay inoo sheegeen in suuqa u dhow ee badeecadaha ka soo dhoofsadaan uu yahay suuqa magaalada Kismaayo safarkanna ma aha mid fudud sida ay ganacsatada inoo xaqiijiyeen maadaama aysan wadada deegaankan ku xidhan magaalada Kismaayo ahayn mid dhisan arrinkan ayaa sababa in mararka qaar gabi ahaanba la waayo gawaadhi badeecadaha u safrisa Cabdalla Biroole marka la helana lacagta ganacsadan laga qaado ay tahay mid aad u badan oo sababtay inuu qiimihii lagu iibin lahaa badeecadahan aad sare ugu kaco ganacsiga xaqiis markii hadda ka hadlo dadka horta meesha reer baadiyo u badan wax laga ganacsado waa reer baadiyo marna uu guura oo meel roobku ku daayo aada marka kale tan oo hadda uu danka u degan yahayna waa iska fiican yahay hadda wax dhibaato ah kama taagna maadaama sanadkan hadda loo leeyahay farabadan ay joogtay ونوع فيعنا مركز الأولين عند عمل يقولون كي ديان كنا سنة رب راعي ورب تال عادي ليش يوحنا أسبوع راعي وواحد نفل يعني نعس كذا مركز قادنا مصيرها هذا أنا هرت عن ما نقص معايا تذكر توضدين كنا واسكعريري وباورتا ويرتها هل باور باوش خيط ولدان وحكرت توح اسكو مرنا عيون باورتا ويرت wadadana way xuntahay oo wadada jaagal soo marayo waa wada raf dhagax badan hariiri maalin kasta gaari ma wala helaba badeecada adoo markay aad wax u baahantay badeecada ka kala goodo waxa laga yaabaa in 3 bir 4 biri baawrlaan awad ay waxna waxa u imaawayaan oo sheegi aad u baahneed 5 biri amal baawrlaan ay ku qabato ya macquul ah wixii 50 kiiloomitir gaari soo saaray qiimaha Kismaayo oo soo qad baawr nooliya soo galay $2 gaari ku soo qaaday adna $2 baad ku dartaa wax weyn oo kala kuma dari kartid marka maashida waa iska hadda iska kacsan tahay Kismaayo iskorta amal iska kacsan tahay moogi hadda ma qiimaha ma sii badno waa iska normal ah iska dadka dad macnaha wax hadda ganacsiga si weyn badanka ka jirno bidacada qaali laga dhigo macnaha wax gadanaya ma jirin adeegyada ay ganacsatadu u fuliyaan bulshada ma aha kuwa ay baahida loo qabo kaliya ku kooban tahay maalinkii ganacsiga habeenkii waa mid kaliya suuragali kara hadii la helo amni buuxa iyo adeegyada kale ee daruuriga u ah hawlaha habeenkii sida korontada oo laga dhaliyo nalka waxaan xilli habeen oo aan baxnay suuqa deegaankan intii aan ku sugnayn waxaan halka ku aragnay ganacsato hawlahooda ganacsi si habsami leh oo cabsi la'aan ah wata waxay kaliya ganacsadan codsanayaan in loo fududeeyo helitaanka korontada maadaama ay haatan adeegsadaan korontada laga dhaliyo cadceedda oo aan mararka qaar kood ku fileen baahiyahooda iyo in dayactir loogu sameeyo wadada deegaankan ku xidhan magaalada Kismaayo si ay ugu fududaato soo dhoofsashada badeecadaha ganacsi Yaxya Ugaas Cabdirasaaq Jubbaland TV deegaanka Cabdalla Biroole